السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وواضح أدي هذا ومهزنتهين. waxaan ognahay madaxweyne Trump in amarro kala duwan labadii toddobaad ee la soo dhaafay uu soo saaray oo la xiriira dadka waddanka qaxooti ahaan ku soo galay dadka viisayaasha lagu keenay isagoo mamnuucay wadamo fara badan oo 19 wadan haddana aan arkayay ilaa iyo 30 wadan in uu doonayo inuu gaarsiiyo dadkoodu inay Mareykanka yimaadaan. waxaa jiray dadka dacwaduhu ay u socdeen in dacwadahoodii hakad la geliyay kuwa green card ka xareystay in la yiri interview ayaa dib looga qaadayaa isla markaana sharciyadaasi kala duwan la soo rogay iyo kuwa quseynaya dadka waddanka sharci darrada ku soo galay. haddaba waxa ay la soo xiriiray mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddanka soo galay sanadkii 2024 oo qaab visa intuu ku yimid markii green card-ka uu xareystay kadib oo farihii iyo sawirkii laga qaaday waraaq ballan interview loo soo diray. marka waxa uu inooga warramayaa bal interviewgaasi sida uu ahaa isagoo ii sheegay inuu ahaa interview adag markii interviewga laga qaaday kadibna maxaa dhacay. dad badan oo ballamo dhinaca green card-ka lahaa ayaa hadda ballamihii laga kansalay ama kuwa u ballansanaa in dhalashada ama baasaboorka ay qaataan interviewdeedii la kansalay kuwa la dhaarin lahaa oo interviewgu ku baasayna ballantii ayaa laga kansalay oo waxa la yiri dib u eegis ayaa lagu sameynaya. marka howlo fara badan ayaa ka socday. mukhtaar ayaa la yiraahdaa wiilkan Minneapolis ayuu ku sugan yahay. mukhtaar bal soo dhawow, adigu Mareykanka goormaa soo gashay, qaab noocee ah ayaadna ku soo gashay? cilmi waan dhawahay, waan mahadsan tahay. aniga waddanka waxaa soo galay 2023 May 18 baan imiday bishii 18 Mareykan imiday. aniga waxaan waddanka ku imiday waxay keentay xaaskayga dacwado ay keentay waddanka oo qaab visa ah ku timid. iyo waxaan ku imiday qaab kan la yiraahdo visa nantriga qaxooti ahaan baan ku imiday. aniga baasaboor Soomaali baan haystay marka qayb ayonta ay keentay aniga waddanka ayonta ay keentay. waa gartay. marka cilmi waddanka waxaan soo galay markaan waddanka 23 soo galay isla sanadkii markaan dhamaystay 24kii bishii 7 baan xareeyay green card-kii. waa gartay sida sharciga hal sano markaad joogto waa inaad green card ka xareysaa. bishii 7 baan xareeyay. markii aan xareeyay waxaan sugayay inuu ii soo dhaco green card-kaygu ima soo dhicin. isla bisi horta farihii baa la ii soo diray bishii 8 baan farihii maray. farihii markaan maray ee sugayay inuu ii soo dhaco imuu soo dhicin. bishii 10aad dhexdeedii waxaa la ii soo diray abka dhexdiisa laga soo diray interview lay ballamin doono. marka waa bishii 10aad miya ee isla sanadka 2025? waa bishii 10aad ee 2024 ha. waa gartay. walaalo markii saa markii mataqaanaa abka sii soo dhacay waan iska aamusay shaqadayda iska watay hawshayda. ballantii mudday maqnayd aduu ilaa ku dhow sanad ku dhow ay maqnayd. sanadkan bishii 8aad bay ballantii ii soo dhacday marka. waa gartay. ballantii markii lay ballamiyey ballanta waxaa kamid ahaa oo mataqaan la raaciyay inaan soo kaxaysto aniga xaaskayga iyo carruurtayda dhalashooyinka ciyaalkayga oo dhan aan soo qaato cidda halka inta meeshan ku dhalatay inta waddanka ku dhalatayba. waa gartay. ciyaalka qaybta mataqaanaa baasaboorada haystay waaweyn iyo xaaskayga oo baasaboorkeeda wata inay soo raacaan qof fiican oo mataqaanaa turjubaan uu soo raaco. marka turjubaankana adigaaba lagu yiri hore u soo wado? aniga lagu yiri turjubaan soo kaxaysa. waa gartay. cilmo wiilkii turjubaanka ayaa ahaa baan wacay oo saaxiibanahay. wiilkii way raacay, xaaskayga waan kaxaystay, carruurta qaar kamid aan kaxaystay. meeshii baan galay. interview adag baa laga qaaday fara badan oo 500 oo su'aalood ku dhow. waa gartay. nin su'aalihii hore safaaradda lagu soo weydiiyey way ku jireen. kuwa ka baxsanna way jireen. waa gartay. waxaad ii sheegtay horta interviewga markii aad tagtay qofka kaa qaadaya ma ahana qof kalena inuu garab fadhiyo computer haysto wax qoraya. bal arrintaas waxay nooga sheeg. waxaa markii inankii turjubaanka aan weydiiyey waxaa garab fadhiday naagta ofisarada aan baasaboorka dadka interviewga. waa gartay. qofka kaa qaadaya ma ahana qof kale ayaa dhinac fadhiya. qofka kale garab fadhiya head computer baa ku qoraysay su'aashii aan sheegay la weydiiyey ka jawaab way qoraysay. marka taas macnaheedu waxay tahay in iyadu ay haysay interviewadaadii hore oo isku fiirinaysay hadda su'aalaha lagu weydiinayo kuwaadii hore inay isla yihiin. yaana kaa dhaafay waxaa kaloo haystay cilmiga dokumentigii 2016 markii kiisku ii bilowday iyo ilaa maalintaas oo 2025 bisha mataqaanaa 8aada wixii dokumenti haye kolba ama green card aan ku xareeyo ama dacwad aan ku soo maraya dhamaystirna meesha ku hayay. waa gartay. waxay haysteen meesha waxa u buuxay warqado aad u fara badan meesha ku haysteen oo mataqaanaa ku saabsan macluumaadkayga. waa gartay. marka interviewgaasi haddii aad qiyaasato muddo intee la eg ayuu socday?
iyo interviewgaas wacala wuxuu socday aduu ugu yaraan 45 daqiiqo meelaha. waa gartay marka su'aalaha ka baxsan kuwii horey lagu soo weydiiyey markii processku ku socday kuwa cusub maxaad ka xasuusataa oo lagu weydiiyo kugu cusbaa kuwa cusubna waxaan ka xasuustaa waxaan hadda mataqaanaa sharciyada cusub ee Mareykan ka jira mataqaanaa dadkan gurigaaga ma kula nool yahay qof aan sharci haysan. waa gartay Mareykan inta joogtay jeel ma gashay ma lagu xiray. marka waa su'aalo ha iyo maya inta u badnaa miya ha iyo maya u badnaa su'aaluhu waa su'aalo inta badan maya bay u badnaayeen su'aaluhu inta badan. waa gartay wadanka kollama ka baxday oo inta wadanka ka baxday ma soo laabatay muddadii aad joogtay macnaha intaad baxday ma soo laabatay waa gartay waxaa kaloo kamid ahaa dhalashada ilmahayga oo malaha 7-8 jeer lagu celiyay yani inaan mataqaana kala hadlan bal inuu qofkan mataqaana isbedel kala hadlo marka taariikhda ay dhasheen lagu weydiinaya carruurtaada taariikhda ay dhasheen ilmaha baa la weydiinayaa waa gartay kuwii wadankii ku dhashay iyo kuwii halan ku dhashay baa sharciyadooda mataqaana maadaama dhalashooyin wada Mareykan haystaan baa dhalashada la weydiinaya markan hadda sheego su'aalo 10 ama 20 baa la weydiin haddana waa lagu soo celinayay waa gartay haddana markaan wado haddana waa lagu soo celinayay waa gartay marka su'aalahaas la weydiiyay ugu dambeyn marka su'aalaha dhamaystirana waa lagu dhaarinaya waxa aad sheegayso marka hore soo gashay waa lagu dhaarin marka si baxsan lagu dhaarin waxa aad sheegayso inaad run ka sheegayso lagu dhaarin waa gartay marka cilmigu su'aalahaas way jiraan saas la weydiiyay interviewgaas laga qaaday interview adag buu ahaa waqtiga mataqaana aan meesha joogay waxaan dareemay xogaa culays baa dareemay waa gartay oo macnaha si fudud interview fudud ma uusan ahayn wareysi fudud ma ahayn wareysi fudud ma ahayn interview fudud ma ahayn qofka marka meesha fadhido culays baa ku soo wajahaya culays baa dareemaysaa oo kalba wiilka mataqaana tijaabka ayaa aabay wuxuu ku lahaa ha mataqaana hadhiin stage waa iska su'aalaha iska caadi weey stage ku lahaa waa gartay marka ma adiga oo kaliya su'aalo lagu weydiinay mase xaaskaada iyo carruurtaadana su'aalo waa la weydiiyay qolka iyaga markii ay soo galeen meesha la arkay waxa la fariisiyay meel dhinacaas banaanka la fariisay halkaas ka fadhiya lagu marka kaligaa baa qol lagu la galay iyaguna meel gaar ah iska fariistay keligii baa qol la galay keligii baa qol la galay aniga iyo wiilka turjubaanka qolka wada galay labada qof ee kala wisi joogeen cadaanka ee interview gabadha qaadaysay gabadha kale wax qoraysay waa gartay marka arintan waxay u muuqataa inay ba ahayd ba intii hadda amaradan aysan soo bixin laakiin hadda amaradan cusub oo Trump dadka green card ka xareysanaya iyo kuwii uu xareysnaa iyo kuwa qaxooti ahaan ku yimidba in sharciyadii la sii adkeeyay interviewga markii uu ku dhamaaday kadib iska bax ayaa lagu yiri maxaa dhacay markaas kadib interviewga markuu uu dhamaaday waxay ugu dhaaheen iska bax kiiska go'aan ka soo gaarayna markaan go'aan ka soo gaarno macluumaadka aan soo siin doona waan iska tagay hal maalin kadib warqad bay soo direen la soo abuurfay oo waa lagu ogolaaday green card kaadi ah waa lagu ogolaaday green card ha kadib maxaa xigay 3 maalin kadib green card lafta ay soo dhacay marka adiga 5 maalmood kadib markii aad interviewga martay green card kaadi waad heshay 5 maalmood kadib ha markaan interviewga mar green card waan helay marka arintaas sidee kula muuqataa marka maadaama inta badan aan ognahay dadku markay green card ka xareeyaan in muddo sanado ah uu ka maqnaada qaarkood oo ay sugaan in green cardkii loo daabaco oo la approve gareeyo wareysigan ma isleedahay waxa uu fududeynayaa qofka in green cardkiisii si dhaqso ah loogu ogolaado haddii uu qaab sax ah Mareykanka ku yimid waxaan dadka kula talin lahaa qofka mataqaana markuu interviewgan marayo horta lambar 1 inuu sii ka haysto qofkii wadanka keenay qof loo dacwado haduu yahay waa gartay qofkii wadanka keenay oo sharcigiisa wata inuu sii ka haysto inuu mataqaana interviewga markuu marayo meesha qofkaas ay wada socdaan saa uu maro haddii mataqaana asaasi dhacdo saa ku maro wixiisu waa horu ka helaya saan aaminsanahay sidii mataqaana in mataqaana hawshu igu dhacdo kale aad baa ugu fududaanaysaa laakiin qofkii haddii ay wax ka dhantaalmaan waa laga yaabaa inuu xogaa dhib noqoto caqabad ay noqoto laga yaabaa aad iyo aad u mahadsan tahay Mukhtaar waa kaaga mahad celinaya wareysigan waxaan filayaa dad fara badan oo ka cabsi qabay interviewga ama wareysiga lala yeelanayo muxuu yahay in hadda fikir ay ka haystaan oo ay isku diyaarin karaan haddii balan wareysi noocaasi ah dadka green card ka xareystay ama hadda kadib xareysanaya haddii ay rabaan in ay inta green card kooda ay helaan waa kaaga mahad celinaya Mukhtaar wareysiga aywa la cilmi aywa salaam